صار وسير كوسلا طب كرب صار طب wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Salabaan Ciise Xagle Toosiye ayaa baryahanba kormeer hawleed ku mareeyay deegaanada kala duwan ee gobolada Awdal iyo Salal taasi oo ugu kuurgalayay hawlaha shaqo ee goobaha caafimaadka deegaanadaasi ka jira wasiirka iyo wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo ayaa saaka subaxnimo ka soo ambabaxay deegaanka degmada Sayla ee magaalada madaxda gobolka Salal waxaana uu goobahaasi kormeer ku soo maray isbitaalka guud ee magaalada Sayla iyo MCH-ka ayaa waxa uu kula kulmay shaqaalaha caafimaadka ka howlgala goobahaasi waxa lagu soo dhaweeyay deegaanka Jidi oo uu salaan kaga qaatay ciidanka qaranka qaybta 19aad ee deegaankaasi ka howlgala waxaana uu soo kormeeray MCH-ka ku yaala deegaanka degmada Jidi waxa kale oo uu wasiirka iyo wafdigiisu ay soo booqdeen deegaanka Cabdiqaadir oo uu soo maray xarumaha caafimaadka goobtaasi oo uu kuurgalay sida ay u shaqeeyaan kadibna wasiirku waxa uu soo gudbay deegaanka Xariirad oo uu degmada Xariirad kaga jaray isbitaalka weyn ee dhawaan laga hirgeliyay oo uu xariga ka jaray runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arko dhismaha quruxda badan ee ay soo dhiseen jaaliyadda dibadda jirta ee reer Xariirad waa horumar aad u weyn waa waxqabad weyn waa wax loo baahnaa oo nagaasa bulshadu u baahan tahay waa dhismo aad u qurux badan oo daboolaya baahidii caafimaadka ee deegaankan oo dhan waa tusaale wanaagsan waa wax ku dayasho mudan runtii ummadda horumarkeedu wuxuu ku dhisan yahay hadba sida ay iyagu u tababushaystaan ama ku qabsadaan biyo saxabadeeda lagaga dhargaa ay Soomaalidu tiraahdo waa sidan oo kale maanta waxa weeye isbitaal aad u weyn oo muhiim ah oo haddaad dawlad ka sugtaan muddo qaadan lahaa baad dhisateen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan ku amaanaya inta marka ka gudbo isbitaalku waa loo wareegnay wasaarad ahaan wuxuu ka mid noqonayaa isbitaalada wasaaradda caafimaadka waajibaadkii waxqabadkiisuna waxaana qadar sharaf loogu sameeyay wasiirka iyo wafdigiisa degmada Boon ee gobolka Salal waxaana uu kormeer ku soo maray MCH-ka ku yaala deegaankaasi iyadoo si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada Qunujeed oo uu ku tilmaamay inuu ku yaalo MCH-ka ugu ballaaran isla markaasina ka ugu qurux badan ee shaqooyinka ugu badan ee ay ka socdaan gobolada Awdal iyo Salal wasiirku waxa uu warbixino kala duwan ka dhageystay mas'uuliyiinta kala duwan ee goobahaasi caafimaadka maamulayay kulamo kala gedisan la yeeshay oday dhaqameedyada kala duwan ee deegaanadaasi waxaana uu kala hadlay dhinaca nabadgelyada iyo sidii shaqaalaha caafimaadka ay ula shaqayn lahaayeen waxaana uu wasiirku hore u soo kormeeray degmooyinka Boorama Baki Lughaya Dila iyo deegaanada Garbadadar iyo tuulooyin hoos yimaada oo uu indhihiisa ku soo arkay shaqadu sida ay uga socoto iyo hawlwadeennada caafimaadku sida ay bulshada dhinaca caafimaadka adeega fiican ugu fidiyaan waxaana wafdigan wasiirku uu soo ogaaday xaaladda shaqo ee deegaanadaasi iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee wasiirka wasaaradda caafimaadku uu kormeer hawleed ku soo maro deegaanada gobolada Awdal iyo Salal waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama